يا سلام، يا سلام. إن تصدق مع الله يصدق الله معك. waxaa la yidhi haddaad ilaahay run u sheegtid ilaahay isagan run buu kuu sheegayaa. walaalayaal arkaysaanba ninka kan koomba ayuu ku jiraa amiirkiisa ma joogo, haddana maca daalika waa uu weysaysanayaa mar kasta uu maqlo amaba la gaaro xilliga aadaanka wuu weysaysanayaa. saad arkaysaan dheguhu hadda masaxayaa lugihii xaggiisa ayuu aaday, koonbuu ku jiraa, amiirkiisa ma joogo. nebiga sal allahu alay wasalam wuxuu leeyahay man shabba calaa shayin shaaba calayhi. ruuxii shay ku barbaaro waa uu ku ciraystaa. haddaba walaalkayga muslimka ahow iyo walaashayda muslimadda ahay, goormeed ku biiraysaa sufuufta musalliinta oo aad ka mid noqonaysaa kuwa salaadooda xifdiya, oo aad ka mid noqonaysaa kuwa salaadooda daa'ima? goorme ayaad toosaysaa oo aad ogaanaysaa in arrimaha diinta kan ugu weyn tawxiidka alle kadib inuu yahay salaadda oo la xifdiyo? nebiga sal allahu alay wasalam wuxuu leeyahay kaana xaqan cala allaahi man laqiya allaha wahuwa xaafidun calaa haadihi asalawaat an yudkhilahu allahu aljanna. ilaahay korkiisa waxaa xaq ku ah ruuxii la kulma isagoo xifdinaya salaadaha tan inuu gelinayo jannada. xadiiska nebiga sal allahu alay wasalam wuxuu ku leeyahay 5 salawaatin 5 salaadood man addaahunna ruuxii guta xaysu yunaadaa bihinna meesha loogu dhawaaqayo oo masaajidda ah weliba ku guta kunna lahu nuuran wa burhaana. waxay u ahaanayaan maalinka qiyaamaha nuur iyo burhaan bay u ahaanayaan. waman dayacahunna falaa yaluumanna ilaa nafsaha. laakiin ruuxii dayaca naftiisa mooye cid kale yuusan eedin oo canaanan. saan ogsoonnahay arrinka ugu horeeyo ay ku jawaabi doonaan ehelnaarka markii la weydiiyey saqare maxaa idiin soo geliyay, waxaa weeye salaadeena xifdiyi jiri. suuratulmudasir ilaahay wuxuu ku leeyahay cani ilmujrimiin maa salakakum fii saqar. waddada saqare maxaa idiin soo mariyey? waxay leeyihiin lam nakum min almusalliin. ilaahay waxaan ka baryaa inuu naga dhigo kuwa salaada xifdiya. yaa salaam.